magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka dhacday munaasabad ballaadhan oo kulmisay jaaliyadda reer Somaliland ee degan Canada iyo xildhibaan jaamaca Bokor Dube oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ee laga soo doorto gobolka Togdheer oo socdaal lagu mideynayo jaaliyadaha Somaliland ku mareeyay dalal ka tirsan qaaradda Yurub, Ingiriiska, Mareykanka iyo Canada. munaasabada oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada, badi odayaasha, aqoon-yahanka, haweenka iyo haldoorka reer Somaliland ee Canada degan ayaa ahaa mid ay gondaha isku dareen xildhibaan jaamaca Bokor iyo jaaliyadda reer Somaliland. munaasabada isugu jirtay dhowr qaybood waxaa qayb muhiima ka ahayd xog waranka xildhibaanka oo dhahda iyo fariimaha odayaasha iyo aqoon-yahanka iyo su'aalo ay jaaliyaddu xildhibaanka ka weydiinaysay xaaladii dalka, qorshaha qaranka iyo golaha baarlamaanka ee uu ka tirsan yahay. soo dhaweyn kadib odayaasha iyo haldoorka Somaliland ee reer Canada ayaa ugu horeyn madasha ka jeediyey kelmado ay ugu muhiimsanaayeen talooyin iyo fikirro ay xildhibaanka u sii farayeen dalkii iyo dadkii uu ka yimi. waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanka welcome to our city, welcome to Toronto. jaamac ku soo dhawow magaaladii Toronto, ku soo dhawow dalkii Canada. waa magaalada community-ga ugu ballaaran ee Somaliland joogaan. welcome baan ku leeyahay. xildhibaan caawa canaani ma jirtee fariin baa jirta. fariintuna waxa weeyaan maadaama aad tahay xildhibaan oo xeerjidintii aad ka socoto, waxaanu leenahay baaq fariin ku faraynaa. haddaad tihiin xildhibaanada, waxaan doonaynaa inaad wixii sharciga ee dalka u dana inaad ka midowdaan. arrin xal lagu keenay oo sharcigii laga baydhay haddaynu xadaysanno oo ay dhasho khilaafaad kaloo ayaguna xuluul fara badan u hadal, waxaad ku dambayn doontaa sharcigana iska laalaabteen. mar haddii xal wax lagu sameeyo yaan loo sii wadin ayaan ku farayaa xildhibaan. sharcigu ha sarreeyo. sharcigu wax kasta hadday murqi qaraaraanayso sharciga ha lagu koobnaado. laba ma heshiinayaan waa habeenkii xalay oo tegay. ninka guushaadu ay geeridiisu u tahay, harumarkaaguna uu dabadhiciisu u yahay, iyo ninka dowladnimadiisii inaanay taam noqonaynin oo milgo iyo maamuus midna yeelanaynin haddaanu mandaqada gacanta ku dhigin, kaana heshiin maayaan. waa la fahmi karaa oo waa la garan karaa. sidaa darteed waxaan qabaa in albaabkaas uu xidhmo haddii aad tihiin sharci dejintii. golayaashan sharci dejintu haddii ay hormariyaan xusbiyada oo ka dhigtaan xusbiyada inay xusbigu sarreeyo oo waddanka ay ka dhigaanna talabaad iyana baaba bay noo keenaysaa. marka inaad ku dadaashaan inaad waddanka hormarisaan oo ka hormarisaan xusbiyada. xildhibaan waxaan doonayaa inaan su'aal ku weydiiyo ku sii horeysiyo. mooshin baan arkay inaad yara biirsanaysaan, annaguna xildhibaanaan doonaynaa. habluhuna sanadkan aad bay u sharaxan yihiin. marka insha Allah waxaan rajaynayaa in waqtiga nagu dheerayn gabdhahana dee koota loo xidho oo sharciga aad noo furtaan. aad baan idin salaamayaa. ku soo dhawow Toronto mar kale. waxaan leeyahay balmeeyarka maanta jooga iyo dawladduba magaalooyinka ha u diyaariyaan dalxiis, ha u diyaariyaan sidii loo maalgashan lahaa. xildhibaan waxba ku fari mayno. allah ku nabadgeliyo. anigu ilaahanu isagaajino oo meesha yada salaxano. annagii baa taayadii baylaha tahay runtii. waxaanu ku heshiinay inaan isu iman karin weligayo. odayaashaana u sababa arrimaha. dhalinyaradu way dadaalayaan, si fiican baanay arrinka u wadaan. waxaan idinku codsanaynaa xildhibaannimadaanaba waa u hanweynahay. dee kordhis ku soo noqon maysaane, bal dib inaad doorashada u gashaan. dib isugu dayo oo naga joojiya kordhiskiiyo waxaasoo dimuqrasigu ha inoo socdo. xildhibaan jaamaca Bokor ayaa dhinaciisa uga xog warramay jaaliyadda, ujeeddada socdaalkiisa, khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay oo uu xildhibaanku madasha ka jeediyeyna waxaa hadalladiisii ka mid ahaa. waxaan is idhi war bal dadkii halkaa joogay ilaa dadku hadhiina maahee aqoon bay leeyihiin oo dhaqaalay leeyihiin oo tiray leeyihiin oo
wax badan bay qaban karayaan bal inta idinka dhiman ee dawladda ka dhiman dee iyagaaba buuxin karayee bal u tago fariinta gaarsii marka ingiriiskii markaan ka imi aan waxoogaa dee halkaa waxaan imi Maraykan 5 state baan maray 5 state ba sidanoo kale iyo siyaabo kala duwan ayaan dadka ula shirayay waxaan kala hadlayna fariin qudun bay ahaydoo ururinta jaaliyadda reer Somaliland waxaad moodaysaa markii dee doorashooyinkii wixii dhaceen inay waxoogaa dee xajiina ka yara tagtay oo dareen si loo yara kala qaaday ama waxyaabihii ka horreeyeyba dabadeedna hadday qarannimadeenu noqoto dee maalinba ninka kursiga fadhiya inta la xisbiga ama la reerka ah dee qaran noqon mayno marka fariintaan idiin sidaa waa fariintaasoo war indhahana idinku isku eegasaan waxyaabahan ka fog ku eega arrintu maanta ma joogto xisbi hebel iyo baheble iyo waxa ma joogto soo si wacan ay maqli maysaan arrintu maanta halkaa ma joogto arrintu maanta waxa joogtaa in la is ururiyo in la dadaalo in qarannimada laga shaqeeyo in aynu ummad jirta noqonno oo aynu dadaallo intaa kadib jaaliyadda ayaa dhinacooda su'aalo tiro badnaa madasha ku weydiiyey xildhibaan jaamaca bokor wadamada qaar gruub 3 xildhibaan baa hal xeer soo gudbiya teeramka inta ay joogaan idinku ma leedihiin nidaamka caynkaasa wax xeerara maxaa soo gudbiseen intii aad meesha fadhideen moosinku wuxuu haddana dadka u caddeeyo in la laalayo wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya dadkuna aad iyo aad u xiiseynayeen lana doonayay arrinkaas inuu dhaqan galo aakhirkiina waxaa dhacday in markii baarlamaanka la geeyey baarlamaankeena tushish ku furmay oo dibadda loo tuuray kelmad baa jirtay caan baxday oo la odhan jiray maylo meeraysaa arrinkaasi ma wuxuu kelmadaasu inaga noqday mise arrinkaa maxaad ka og tahay halkaan sileedu ku damayn doonaa haddii alla ka dhigo su-aashaydu waxay tahay dalkeennu aad iyo aad wuxuu ugu baahan yahay ictiraafka dowladdan aad iminka ka tahay xildhibaanku maxay ka damacsan yihiin hawshay kaga jiraan bal wax nooga yara sheeg su-aashayduna waxay tahay xildhibaanada had iyo jeer gobolka togdheer ka sisa maxay gobolka u qabteen maxayse nala damacsan yihiin dalka Somaliland ma laha xeerka bangiyada gabi ahaanba qofkii ka warqabiyo qofkii aan ka warqabinba xildhibaan goorma idin qorshaysan tahay muddo xileedkiinan 12 bilood idin hadhay inaad xeerka keentaan iyo inaad ku dhiirataan wad mahadsanta guud ahaan waxaad u malaysaa barigu inuu aad uga dambeeyo galbeedka ma idinku jirtaa ajeendooyinkiina in dalka la soo gaarsiiyo xeerka aad bay uga qeyliyeen durbaanay tumeen qaarkood way ku dagaalameen golaha baarlamaanka mar quraad moodaa inuu shiiqay oo hadalkoodii la waayay halku ku dambeeyay xeerkaasi iyo nimankii qaylinayay halkay ku dambeeyeen baan ku weydiinayaa maadaama ku yaacay anada hay'ad ku jirto maxaad nooga sheegi kartaa maadaama xusbigii ka timid anaguna xusbiga dad badan oo ka mid aha uu halkan fadhiyaan maxaad nooga sheegi kartaa inaad xusbigii maadaama uu si yara leecleecay saan u aragno xildhibaanka ayaa dhankiisa ka jawaabay dhammaan su'aalihii tirada badnaa ee jaaliyadda reer Somaliland ee Kanada weydiisay waa su'aasha ugu badan ee la weydiiyo runtii mar walba magaalo kasta aan tago way weydiiyaan waxaan soo reebarco يا waxa ciyalkan dambe yiraahdaa uu ku soo rawaxay xeerkan way ku soo rawaxeen horta xeertu alif ma jira 23 baa jira 23gu baarlamaanka anaga naga horeeyay ayaa intii aan meesha ka tagi gacan geliyay oo wax badan bay soo jarjareen annaga mooshin baa lagu keenay mooshinkii uu yara taagan yahay wali dhowr kal fadhi baa dhaafay waa tii waddanka hawlo badan marna doorshay waana xeer yara muran dawleeya marka horta hawshiisu way taalaa golaha xeerkaasi golaha uu yaal inantii kulmiye waxaan kugu bashaareynayaa kulmiye dee waxba doorashada waa laga helay maaha markii ugu horeysay laga helay marar horeba waa laga helay soo rogaal celinta way yaqaaniin dee waynu diyaar garoobanaa shir looma wada unsiye arrimaheennana ilaa nimanka haddaan halkan kuugu warramo waa layna maqlayaaye gebagabadiina
waxaa munaasabadda si weyn looga mahadceliyey ganacsade maxamuud jirde iyo xubnihii kulankan ballaadhan soo qaban qaabay